kulanti waxaan dhammaan daawadayaal wararkii ugu dambeeyay siyaasadda Soomaaliya ee kuwageeda ugu xiiso badnaa waxaa ka mid ah garaadka guud ee beelaha SSC Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa sheegay in gobolka Sool aynan argagaxo joogin isagoo ciidamada Soomaaliland ku eedeeyay argagaxisnimo. Garaad Cali oo u jawaabayay madaxweyne Biixi ayaa sheegay in dadka shiraya aynan argagaxo ahayn, waxaana intaa ku daray in hadalka madaxweynuhu oo dhibaatadii hore ee jirtay sii hurinaya. waanu ku xunnahay, waxaanu cadeynaynaa inaynan argagaxo ahayn dadka shiraya ee reer SSC ee ayahooda ka tashanaya aynan argagaxo ahayn. dhibaatooyinkii hore ee Muuse iyo maamulkiisa ay dadkani u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa, ayuu yiri Garaad Cali. Garaadku ciidamada Soomaaliland ayuu argagaxo ku tilmaamay, waxa uuna sheegay inaanay jirin argagaxo aanan ciidamada Soomaaliland ahayn ee gobolka joogta. waxa uuna sheegay in dhibaato kasta oo gobolka ka dhacday ay u qabsan doonaan madaxweyne Muuse Biixi. waxaanu cadeynaynaa inaanaan argagaxo ahayn dadka ku shiraya reer SSC ee ayahooda ka tashanaya ee dalahooda maareynaya ee masiirkooda wax iska weydiinaya ee nabadgelyadooda iyo horumarkooda wax iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagaxo ahayn. dhibaatooyinkii hore Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen unbay sii laba jibaaraysaa. waxaanu adduunka ugu baaqay inaynan taageerin ciidamada Soomaaliland, isagoo sheegay in taageeradii hore ee caalamka siiyay Soomaaliland ay dhibaato ka soo gaadhay shacabka ku dhaqan gobolada SSC. waxaanu sheegay inaanay jirin argagaxo Sool joogta. madaxweynaha Soomaaliland oo shalay ka hadlay xaaladda gobolka Sool ayaa sheegay in dilalka ka dhacaya Laascaanood ay kooxo argagaxo ah ummadda isku diraysa ka fuliyaan, isla markaana waxa uu dhinaca kale shirka ismada SSC ka rajaynaya in ay ka soo baxdo talo nabadgelyo ah, ayadoo Soomaaliland ay weli wado dhaqdhaqaaqyo ciidan kadib markii taangiyada maamulka Soomaaliland la soo dhoobay darafka magaalada Laascaanood. xaaladdan ayaa u eg in Soomaaliland ay ka warsugayso waxa ka soo bixi doona shirka ismada SSC, oo haddii arrimo ka soo horjeeda rabitaankooda ay lama horaan noqon doonto inay gacan ka hadal gaarto arrintu. dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada dalalka safka hore oo shir uga furmay magaalada Muqdisho. waxaa si rasmi ah shir uga furmay magaalada Muqdisho wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyayaasha ciidamada dalalka Soomaaliya, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia ee la isku yiraahdo dalalka safka hore. wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in shirkan uu yahay mid diiradda lagu saari doono dhamaystirka howlgallada ka dhanka ah kooxda argagaxisada ee Al-Shabaab iyo doorka taageerada dalkan ka geysan karaan dib u xoreynta deegaanada ay weli kaga sugan yihiin Al-Shabaab gudaha Soomaaliya. kulankan waa mid muhiim ah sababtoo ah xaaladda amni ee hadda ka jirta Soomaaliya ma ahan mid saameynaysa Soomaaliya oo kaliya, balse sidoo kale waxay saameynaysaa dalalka dariska ah. shirkani waxa uu sahlayaa inaan si wadajir ah loo ciribtiro khawaarijta, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac. shirkani shalay u furmay wasaaradda iyo taliyayaasha ciidamada ayaa ah mid ay ku diyaarinayaan ajanda shir madaxeedka maanta ka dhici doona oo la filayo inay ka soo baxaan natiijooyin qeexi doona howlo baaxad leh ee lagu dhammaystirayo howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab iyo guud ahaan ammaanka gobolka. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta shirka gudoomin doona shirka madaxda dalalka safka hore ay ku yeelan doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. sidoo kale warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo habeen hore tuulada Ceelgarof oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga deegaanada Wabxo ee gobolka Galgaduud ku dhexmaray ciidamada dib u xoreynta deegaanada iyo kuwa Al-Shabaab. dagaalkan ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo la tilmaamay inay qorsheynayaan inay weerar ku qaadaan deegaanka Goobo oo ka tirsan degmada Maxaas. hase yeeshee ciidamada dib u xoreynta deegaanada ayaa ka warhelay qorshahaasi oo u dib maray Al-Shabaab saldhigoodii tuulada Ceelgarof, isla markaana ciidankii Al-Shabaab oo ku soo fashilmay weerarkii ay doonayeen inay ku qaadaan deegaanka Goobo oo dib uga soo laabtay tuulada Ceelgarof mar qura dagaal qabsaday. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa waxay sheegeen in dagaalka uu ahaa mid aad u xooggan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo aysan ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi. ciidamada dib u xoreynta deegaanada ee loo yaqaan macawisleyda ayaa xalay adeegsaday farsamo ku cusub xaaladaha dagaalka oo aan horey uga dhicin dagaalada ka dhaca gudaha dalka. ciidamada dib u xoreynta deegaanada ayaa kooxda Al-Shabaab horey uga saaray deegaanada iyo degmooyinka dhaca bariga gobolka Hiiraan. intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena. waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ismaaciil Kulmiye. waad mahadsantahay dhegeysigaaga. haddaad noo share garee karto barnaamijka noo share garee. haddaad channelkeena ku cusub tahayna fadlan subscribe waad mahadsantahay.
السلام عليكم.